Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, maanta waxaan baranaynaa waanooyin aad u qurux badan oo Luqmaan uu siiyey wiilkiisa. Luqmaan wuxuu ahaa nin aad u xikmad badan oo Ilaahay Qur'aanka uu ku sheegay. Soo marka dhowr waano oo ilaa 10 ku dhow ayaan ku baran doonaa. Waa waanooyin aad iyo aad u fiican oo qof walba oo muhiim tahay inuu barto. Qofkii bartana wax weyn ay u tarayso meel uu joogo adduun iyo aakhiro. Caruurey, waanada koowaad ee Luqmaan wiilkiisa uu siiyey ayaa waxay tahay in Ilaahay kaligiisa la caabudo oo wax kale aan la barbar dhigin. Sababtoo ah Ilaahay wuuna uumay, wuxuuna siiyey caafimaad, wuxuu noo uumay geedaha oo aan ka helno raashin, wuxuu uumay xayawaanka oo dhan, wuxuu uumay cirka iyo dhulka. Soo marka isaga kaligiisa ayay tahay in aan rumayno oo aan caabudno. Marka Luqmaan wiilkiisa wuxuu ku yiri, wiilkaygaan aad ku jeclaayo, Ilaahay kaligiisa ayaa Rabbi oo run ah, wax kale oo asaga ka soo haray ma jiro. Caruurey, waanada labaad ee Luqmaan wiilkiisa uu siiyey ayaa waxay tahay in uu baari u noqdo aabihiis iyo hooyadiisa. Sababtoo ah waalidka aad ay muhiim u yihiin islaamka. In qofka waalidkiisa ay kusoo daaleen, hooyadiisa caloosheed ay kusoo qaaday 9 bil oo dhibaatooyin badan iyo jirooyin badan ay la soo martay, haweeno badan ay la dhafartay. Markii ay yar tahay oo aad iyo aad u yar tahay, habeenkii 10 jeer ayaa soo kacdaa adoo ooynaysid. Haddaad jiratid ayagaa ku wadaaya cisbitaal, haddii aad gaajaysan tahay raashin ayay ku siinayaan, ayagaa ku soo iibinaya dhar fiican oo qurux badan, iskuul ayay ku geynayaan. Waa muhiim marka in baari loo noqdo waalidyada. Caruurey, waanada saddexaad oo Luqmaan wiilkiisa uu siiyey ayaa wuxuu yiri, wiilkayga aad aan u jeclaayo, wuxuu ku celcelinayaa mar walbo, wiilkaygaan aad ku jeclaayo, si uu u fahamsiiyo wiilkiisa inuu aad u jecel yahay. Waanadan uu u sheegayana ay tahay waana fiican oo haddii uu ku camal falo oo wax fiican uu ka heli doono. Marka Luqmaan wuxuu yiri, adduunka oo dhan haddii ay jirto seed waxaa loo yaqaanaa miraha yaryarka oo mid ka mid ah ee geedaha, haddii uu jiro oo dhagax dhexdiisa uu dhex galo ama cirka iyo dhulka meeshuro hadduu ku qarsanaado, Ilaah banaanka ayuu keeni karaa. Taas macnaheedu waxay tahay marka in Ilaahay awood badan uu leeyahay, aqoon badanna uu leeyahay, oo qof oo su'aal weydiin kara ama wax ka qarsan kara. Waxay xumaan aad samaysid oo Ilaahay ma ka qarsan kartid. Haddii wax xun aad samaysid, haddii wax xun aad ku hadashid, Ilaahay ma ka qarsan kartid. Haddii wax fiican aad samaysidna, Ilaahay ma ka qarsana, waa laga abaalmarinaa. Marka tan waxayna tusaysaa in haddii oo wax xun aad samaysid, Ilaahay ku arkaayo. Haddii wax fiican aad samaysid, Ilaahay inuu ku arkaayo oo laga abaalmarinayo. Haddii xumaan qofkii sameeya maxaa la sameynaa? Waxa waaye Ilaahay ma ku faraxsana, ma jecla wax xumaan ah. Haddii wax fiican aad samaysid, Ilaahay waa jecel yahay, abaalmarin fiican ayaa lagu siinayaa adduunyo iyo aakhirabo. Caruurey, waanada kale oo Luqmaan wiilkiisa uu siiyey ayaa waxay tahay in salaada la dugto. Salaad badan ma ahan, wuxuu dhahay waa salaada in si fiican loo dugto. Salaada si fiican in loo dugto waxaa laga wadayaa garanaya, waxaa laga wadaa in si fiican aad u soo weyse qaadatid, in markii musqusha aad gashid aad si fiican u soo nadiifisid, taasoo u ordin. Haddii musqusha aad ku fariisatid aad ordaya, ha ka soo kicin. Marka hore waa inaad si fiican isku soo nadiifisaa. Haddii aad kaadisay, waa inaad kaada si fiican u soo dhaqdaa. Haddii dharkaaga uu wasakh, waa inaad iska soo siibtaa, dhar fiican aad gashataa. Markii aad weyse qaadanaysid, waa inaad si fiican u weyse qaadataa, gacmahaaga, lugahaaga, wejigaaga si fiican aad u dhaqdaa. Oo aadan soo ordin oo aadan soo taataabanin gacmahaaga iyo lugtaada. Kadibna haddii aad awoodi kartid oo masaajid uu ku yaala xaafadaada, waa inaad masaajidka aadaa oo dadka muslimiinta kale oo meesha ku dukanaya aad la soo dukataa. Qibladana waa inaad waajahdaa, qiblada Makka waa inaad waajahdaa. Kadib markii salaada aad dukanaysid, waa inaad khushuuc ku dukataa. Ma ahan salaada markaad dukanaysid in geesa aad fiirisid ama aad qosashid ama dad aad qanjiroofatid ama aad boodboodid. waxaasoo dhan salaad fiican ma ah. Salaad fiican waxaa laga wadaa in Ilaahay hortiisa inaad taaganta xasuusnaatid
oo aadan geesaha fiirinin, aadan qosqoslin, muxuu ahaa qofkii agtaada jooga feer aadan ku dhufanin, oo gacmo aadan kasoo jiidin, gadaal gadaal aadan u leexanin, oo hoos hoos aadan fiirinin, oo si fiican oo khushuuc leh ilaahay aa ugu tukatid oo qur-aan aa akhrisatid. waanada kale oo luqmaan wiilkiisa uu siiyey waxay tahay in oo ilaah qur-aanka noogu sheegay in oo lees faro waxay fiican, waxay xunna layska reebo. taas macnaheeda waxay tahay haddaa aragtid qof oo wax xun samaynaya inaad ka reebtid. haddaa aragtid qof la dagaalaya, qof caaytamaaya, qof qaylinaya, qof kale gadaashiisa wax ka sheegaya, haddii waxaas oo dhan aa maqashid waa in aad dhahdaa qofkaas iska dhaafa, ilaahay ka cabsada, waxaas ilaahay ma jecla. dadkana wax fiican inaa u sheegtid, nakeena waa soo dukanaynaa. haddaa aragtid xayawaan baahan in aa quudisid, haddii qof maskiin oo baahan aa aragtid inaad quudisid, haddaa aragtid wax dhulka yaala, qashin dhulka yaala inaad ka qaadid oo aad ku toorid meesha binka oo qashinka lagu rido. wax kasta oo xun, haddii aad tahay qof weyn, haddii qof yar aad tahay, dadka inaa u naxariisatid, qofkii weyn inaa ixtiraamtid. waxaasoo dhan waxaa waaye in waxay fiican dadka aa u sheegtid, waxay xunna aad ka reebtid, adigana aadan ka qayb qaadanin. sababtoo ah waa adiga anaa iska bilowdaa. haddii adiga dadka u sheegaysid waxaas iska dhaafa, xumaanta iska dhaafa, caay iska dhaaf, qayle iska dhaaf, waqtigaa iska dhumin, waqtigaa inaa iska dhumisid xataa wax xun waaye. haddii qofka maanta dhan game uu cayaaraayo 24 saac, haddii wax yar aa cayaartid game, waqtigaa kale aa wax baratid ama qur-aan akhristid ama muxuu ahaa ama banaanka aadid, waa fiican tahay. laakiin haddii 24 saac waqtigaa aa ku dhuminaysid inaad game cayaartid ama telefishin aa fiirsid ama kartuun inaad fiirsatid, taas macnaheeda waxay tahay in waqtiga aa ku cayaaraysid. marka taas waxaa waaye wax xun. haddii qof aragta waqtigiis ku cayaarayo u sheeg inuu waqtiga iskaga cayaarin, adigana waqtigaa iskaga cayaarin, si oo waqtiga wax fiican oo aa u gashatid, hadhowan mustaqbalka wax fiican uu kuu taro, waqtigaas wax fiican aa ku samaysatid. waanada kale oo luqmaan wiilkiisa uu siinaya waxay tahay in la sabro. wuxuu dhahay dadka habka ugu fiican oo baniaadamka aa kula dhaqmi kartid waxay tahay inaa u sabartid. haddii aad sabartid, sababta sabarka laysku farayaa waxay tahay haddii qof aa dhahdid game ma fiicna, 24 sac game in la fiirsado ma fiicna, waxaa laga yaabaa in lagugu xanaaqo oo lagugu qayliyo. haddaad aadid telefishinkan badan aa fiirsanaysin iska dhaafa, waxaa laga yaabaa in lagugu xanaaqo oo lagu caayo oo lagugu qayliyo. shaqadaa ma aha, afaarahey ka baxaa lagu dhahaa. haddaad dhahdid facebookana maantaran aa ku jirtid aa isku caynaysin iska dhaafa, oo waqtiga aa iskaga dhuminaysin, maxaa lagu dhahaa afaarahayna noo dhaaf, adiga haddaa rabta fiirsanin, nabadgelyana si aa lagu dhahaa. marka haddii dadka ay ku caayaan waa in oo adiga sabar yeelataa, oo aa caynin, oo aa hadal xun aa ku celinin. dadka oo wax fiican aa u sheegtid oo ay ku aflagaadeeyaan. sababtoo ah haddaad sabartid ilaahay abaalmarin badan ayuu ku siinayaa. waanada kale luqmaan wiilkiisa uu sii ayaa waxay tahay inaadan iskibrinin oo dadka aadan iska weynaynin. sababtoo ilaahay wuxuu dhahay dadka adoo iska weynaynaysid wejigaaga dadka u qaloocinin. sababtoo ah haddii adiga aaminsan tahay anaa ugu cleversan fasalkayga, ardayda kale oo ila dhigta dhan waa ka fiicanahay. haddaa dhahdid aniga waxaan aadaa exercise badanaa sameynaa, xoog badanaan qabaa, banooni haddii la cayaarayo dadka dhan waa ka orod badanahay, haddii oo qur-aan akrina anaa codkayga ugu fiican, suurad hebelan ani ku jiraa waa ku dhaafay, adi suurad yar aa ku jirtaa waxaa ka siisid ma lahan. waxaas dhan waxaa waaye faan iyo isla weyni, oo dadka dhan aa iskala weynaanaysid. soo marka dadka haddii wejigood aa kasoo leexatid oo adoo tusaaya inaa iskala weyn tahay, waxay ku tusaysaa dadka kale inaa yasaysid. marka dadka ha iska weynaynin, dadka si fiican ula hadal, la fariiso. haddii qof aa ka kaleefarsan tahay, dadka kala caabi. haddii dad aa ka xoog badan tahay, wax aysan samayn karin ku caabi. haddii qof waxa uu qaadi kartid la qaad. haddii oo qof maskiin xataa oo jidka fadhiyo oo dadka tuugsanaayo oo dadka guryo la-aanta ah, haddaa aragtid oo waxay ku weydiistaan, ha caynin. haddii lacag ah haysid iska sii. haddii kale hadal fiican kula hadal, hadda lacag ma haaye, markii kale aan hel ayaan ku siinaa dheh. laakiin haddaa iska weynaysid qofkii oo maskiin ah, qofkii tabar daran, qofkii adiga oo ka aqoon yar, taas macnaheed waxay tahay isla weyni badan inay kugu jirto. waxa kale oo luqmaan wiilkiisa ku waaniyey markii dhulka aad soconaysid si tartiib inaa u socotid oo aadan isweynaysiinin. sababtoo ah ilaahay ma jecla qofkii isweynaysiinaya. taas marka isweynaysidaas waxay noqon kartaa
in oo markii aad soconaysid isqaadqaad aa isku qaadqaadid adoo iska dhigaya dadka dhan in oo aa ka fiican tahay ama in hadalkaaga aa ku faantid oo maanta dhan aa ku jirtid anaa ugu fiican markii playstation la cayaarayo oo game la cayaarayo qof iga badin kara ma laha haddii garoonka banooniga la aado anaa ugu qatarsan oo ugu xariifsan haddii oo muxuu ahaa guriga dadka kale dhan waa ka qurux badan yahay gurigeena ma aragti ha guriga ugu qurux badan waaye aabahay qofka ugu fiican waaye dadka kale dhan aabood waa ka fiican yahay muxuu ahaa baabuurka anaga aan qabno baabuurka dadka dhan waa ka fiican yahay waxaan qabnaa anaga dukaanka ugu weyn magaalada waxaasoo dhan waxaa waaye faar inaad ku faantantid waxay adi oo haysatid ama in dadka markii wadada aa maraysid lugtaa kor joog siisid ama muxuu ahaa dadka adoo tusaysid in aa ka xoog badan tahay ama aa ka weyn ama aa ka awood badan tahay marka mala ogola in camalkaaga ama ficilkaaga aad dadka ku tustid inaad dadka kale ka fiican tahay iyo hadalkaaga dadka inaad ugu faantid dadka kale inaad wax dheer tahay oo aad ka fiican tahay waxaas dhan waxaa waaye aadaab iyo akhlaaq xun oo dadka muslimka aan laga rabin inay ku dhaqmaan waanada kale oo luqmaan wiilkiisa uu waaniyey ayaa waxay tahay markii la hadlaayo si degan oo tartiib leh oo aadaab leh in loo hadlo oo aan loo qaylinin sida dameerka oo kale dameer qayladiis weligaa ma maqashay dameerka markii uu qayliyo wuxuu leeyahay codka ugu xun xayawaanada dhan markii la barbar dhigo marka adiga haddaa qaylisid taas macnaheeda waxay tahay in sida oo dameerka oo kale aa shaabahaysid ama aa isku mid dhigaysid marka waxaa la rabaa markaa hadlaysid si tartiib ah inaa dadka ula hadashid si degan oo aan isla weynin lahayn oo buuq aan lahayn oo qaylo aan lahayn oo caay aan lahayn oo aflagaada aan lahayn dadka inaad kula hadashid oo dadkan ay ku ixtiraamaan haddii qofka uu qaylinaayo oo hadal oo xun uu ku hadlaayo oo kulul qof dhagaysanayo oo warkiisa rabo malaha sababtoo ah dadka dhan way nacayaan qofkii qaylinaayo oo hadal degan oo tartiib aan ka saynin marka ma loo baahna in dadka noocaasa kula hadashid marka luqmaan wuxuu ku celceliyaysan arkayno wiilkayga aan jeclaayo ilaahay caabud wiilkayga aan jeclaayo waalidkaaga baari u noqo wiilkii aan jeclaayo wanaaga far xumaanta reeb dadka iska weynaynin tartiib u soco hadalkaa hoos u dhig tilmaamaha dhan haddaa ku dhaqantid caruurey wax badan ayaa noloshiina iska bedelaysa iyo salaada in lagu dadaalo oo waqtigeeda lagu dugto oo si fiican loo hagaajiyo intaas qofkii ku dhaqmo waxaan filayaa in wax badan uu faa'iidi doono adduunyo iyo aakhiro caruurey waanooyinkii luqmaan meesha ay noogu egyihiin ilaa inta mar dambe aan kulmi doono waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh